mas-uuliyiinta xafiiska komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan lagu xoojinayo amniga magaalada Jigjiga iyo deegaanka la qaatay waxaa kala duwan ee ciidanka booliska. Kulankan oo ka dhacay xarunta komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida ay hogaaminayeen komishineer ku-xigeenka komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Major General Sakariya Cabdi Khaliif iyo Radaad komishineer Cali Cabdi Jabbaar oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidanka booliska, saraakiil ku-xigeenada ciidanka asluubta iyo ciidanka ilaalada amniga wadooyinka ee taraafikada. Haddaba mas-uuliyiinta xafiiska komishinka booliska oo halkaas hadallo dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira uga soo jeediyey ciidanka booliska ayaa sheegay ujeedada guud ee kulankan inuu yahay sidii loo xoojin lahaa shaqada loo hayo bulshada, sugidda amniga iyo ilaalinta sarreynta sharciga. Sidaa awgeedna loo baahan yahay inay ciidanku gutaan waajibaadka ka saaran. Haddaba komishineer ku-xigeenka komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Major General Sakariya Cabdi Khaliif oo warbaahinta booliska la hadlay ayaa sheegay ujeedada guud ee kulankan loo qabtay inuu yahay ujeedkan guud ee shirkan wuxuu ahaa dardargelinta nabadgelyada buu ahaa. shirkii uu caadiga ahaa iska joogtada ahaa wax hor loo cusub ma ahayn, maadaama waxa weeyaan xaaladda nabadgeliyo aan rabno inaan kor u qaadno oo amniga deegaanka qaabka aan u sugi lahayn aan dardargelin aan ku samayno. ujeedku kaan buu ahaa guud ahaan xadkeenna iyo gudaheennaba iyo caasimadaheenna qaabkii aan ku sugi lahayn ammaanka deegaanku aan kor ugu qaadi lahayn baan ciidanka ka wada hadlaynay iyo dhammaan hogaaminta saraakiisha ayadoon ka wada hadalnay inaan ammaanka aan sugno oo isku xidhka shacabka iyo ciidanka aan adkayno. qorshahanagu kaan buu ahaa waana mid joogto ah oo waxa weeyaan markaas soo socday joogtana noo ahaan doona. sidii aan deegaankeenna waxa weeyaan wax khalkhala ama amni xumi ugu imateen ammaankeennuna uu u sarreyn lahaa, mar kastana waxa weeyaan loo feejignoon lahaa. waxaan ognahay deegaankeennu cadow fara badan ayuu leeyahay. waxaa jira cadow aan ognahay oo cadowga caalamka ah oo cadowga bini'aadamka ah, innagana raba inuu dhagaro fara badan soo maleego. marka qaabkii aan uga hortagi lahayn aan waxa weeyaan u adkayn lahayn deegaankeenna, caasimadeenna, tuulooyinkeenna oo ammaanka ilaa heer deegaan ilaa heer tuulo isku xidhkooda waxa weeyaan aan u dhaadhicin lahayn una xaqiijin lahayn baan ka wada hadlaynay. waana mid joogto noo ahaan doona, waana mid aan rabno habeen iyo maalin inaan waxa weeyaan aan sii laba jibaaro. cid kasta oo isku day iyo waxa weeyaan dhagar maleegisana aan kaga hortagi lahayn ayadoon ku rajo weynahay oo farxad ay noo tahay caasimadda iyo dhammaan deegaankeennu inuu waxa weeyaan heerkii amni ee u sarreeyey oo meel fiican u marayo. kaa maana sii adkaynaynaa. ciidamada waxaan farayaa guud ahaan ilaa heer gobol ilaa heer deegaan ilaa heer tuulo waa inaad ammaanka sugtaan. sargaal kasta iyo hogaamin kasta waxay noqon qiimeyntiisu sida asaga iyo shacabkiisu isugu xidhan yihiin, sida uu aaga uu jooga u nadiifiyey oo uu nabadgelyada u sugay. marka hogaaminta ciidanka waxaan leeyahay iyo dhammaan ciidanka waxaan leeyahay inaad u diyaargaroodaan shaqadeenna saan u sii laba jibaari lahayn baan idin fari lahaa. shacabkana aad kasbataan oo waxa weeyaan gacanta midig uu shacabkeennu noqdo, maadaama oon shacabkeenna ka soo dhex baxnay oo shacabkeennu guusheennu ay ku jirto shacabkeennu kolba suu inoola shaqeeyo. innagu waxaan guulaysanaynaa marka shacabkeennu inala shaqaynayo. innagaa hogaamin u ah, innagaa ciidan u ah, laakiin cid meelo kale laga soo diray oo dana gaara waxa weeyaan raadinaya oo isqarxinaysaay shacabkeenna wax ooma hayso. waxaan ognahay sanadkan kalaata shacabkeennu suu ammaanka u jecel yahay runtii waan dareemi karaa. maalinkii alqushaash ay waxa weeyaan deegaankeenna soo gashay, xadkeenna ay timid ee dagaalku uu socday, waxaan dhihi karaa ciidankii dagaalka ku jiray, hooyooyinkii iyo waxa weeyaan shacabkeennii hor socday ayaa waxa weeyaan aan ku baabiinay ahayd oo guusha keenay. marka innagu
aan shacabkeena gacanta midig ku dhigno. Markii uu soo dhamaaday kulankan ayaa ciidamada booliska oo isku dhafa waxay howlgal baadhitaan ah oo lagu sugayo amniga ay ka sameeyeen gudaha magaalada Jigjiga isla markaana shacabka looga baahan yahay inayna u arkin dhibaato oo ay soo dhaweeyaan ciidanka. Haddaba anagoo ka duulina howlgalkaas ayaa waxaan wax ka weydiinay saraakiisha ciidanka booliska oo howlgal baadhitaan oo lagu sugayo amniga iyo xasiloonida bulshada ka waday gudaha magaalada Jigjiga. Dhammaan deegaanka gobolada qabaleeyada meel kasta uu ka socdaa 93 degmo 12 gobol 6 maamul magaalo gaar ahaan caasimadda deegaanku si wuxuu uga socdaa mataqaanaa xawliya cid kasta oo isku dayda mataqaanaa inay wax sharci ka baxsan la soo gasho ama la timaadana ayadoona imanin inaan ka hortagno ayuu ciidanku diyaarsan yahay. hawshaas habeen iyo maalinba waan u soo jeednaa waana u diyaarsannahay wax kasto amniga khalkhal gelinayna tallaabo sharci waafaqsan ayaan ka qaadaynaa. isku soo duuduub habeenadan xalay iyo maanta hadda saacadan taaganaya howlgalku sidii loogu talagalay buu socdaa. waxa laale wixii laga shakiyo iyo wixii macnaha faldambiyad inuu sameeyo loo garto goobaha sharciga ugu dhow la geenaya. bulshada iyo deegaanka dhammaantii anoo kala reebin waxaan kula dardaarmayaa inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga kana qayb qaataan wax walba ka shakiyaan ay soo gudbiyaan. guryaha la kiraynayo hadduu yahay iyo kuwa guryaha deganba hadday tahay nin kasta guriga uu kiraynayo cidda uu ka kiraynayo iyo waxay tahay ha caddeeyo. markuu caddeeyo ka bacdi ee la wadaago hay'adaha amniga ka kirayo maadaama wax walba ka soo bixi karo bulshadana intaasaan kula dardaarmaya. ciidanka amniga ee shaqooyinka ku jirana inay garab galaan la shaqeeyaan si anshaxa ku jirana oo la shaqeeyaan. ciidankana waan siinay dardaaranka inay bulshadoodii tahay tani ay la dhaqmaan ayaguna. marka howlgalkani uu soconaya mid istaagaya ma waan sii dardargelinaynaa waana sii xoojinaynaa waana sii wadaynaa. wax kasta oo sharci ka baxsan cidii ku dhaqmaysana tallaabo sharci waafaqsan baa laga qaaday. bulshadeenu waan mahad celinayaa dhammaanteed shaqsi xuno macnaha la waayay maayo ciidanka caqabad ku noqday baaritaanka shaqsiyaana waan waaninaynaa waxbaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa in amniga iyo nabadgelyadu ay asaga dan u tahay waan ka dhaadhicinaynaa. bulshadana waxaan kula dardaarmayaa ama aan u sheegayaa inay garab galaan hay'adaha amniga oo la shaqeeyaan ee kala duwan wixii warbixina iyo wixii ka shakiyaana ay la wadaagaan hay'adaha amniga. haddaan ka warbixiyo howlgallada iyo baaritaanada lagu jiro waa baaritaanadii iyo howlgalladii hadda ka horba soo socday muddooyinkii hadda u dambeeyayba ee socday ee intay ay isku dayday inay soo weerartay deegaankeenna ururka argagixisada ee alqoshaash ee ciidamada haliyada gaarka ciidanka new booliska ay kaga hortageen xadka. taas darteed maadaama haddana caasimadihii laftooda in amnigoodii la adkeeyo waxa kulanka amniga annaga iyo bulshada isku duuban inaan amniga adkeyno bulshada la wacyi geliyo wax lala wadaago ayuha marka baaritaano noocaas oo annaga iyo shacabka isku duuban aan sameeynay waxa marka waa wuxuu ahaa ku lagu sii adkeynayo amniga magaalada. shacabka fariintan u diray waxay tahay saan aan horeyba u sheegay shacabku maanta fariin uma baahna baan leh iyagaaba fariinaba shacabku maanta iyaga fariintii diray marka halka ha kaga sii wadaan baan leh ayaga dadku shacabku wax qabanaya ayaga ka shaki keenaya ayaga meel walba nooga horeeya marka halka dadka shacabku waxay muujiyeen midnimo muujiyeen dad deegaankooda iyo nabadgelyadooda iyo muwaadinimadooda iyo muwaafaqadooda jecel inay yihiin ay muujiyeen. marka aan waxaan leeyahay halka ha laga sii wado ku jiraa howlgallo kulli habeen iyo maalinba waqtigiina deegaankeenna macnaha wax isku soo deeyay niman argagixisaa waana loo jawaabay meel baa la saaray. marka caasimadda operation ka socda howlgallada ka socda fariin waxaan u dirayaa shacabka marka koobaad maadaama howlgallo socdaan habeen iyo maalinba fatishaal lagu jiro ama baaritaan lagu jiro macnaha ma garanaysaa in lagu garab siiyo baaritaanka ciidanka akhlaaqiyan ciidanka laftiisa macnaha ma garanaysaa rotation fara badan inay macnaha la jecleeyaan dadka laftooda si fiican macnaha ma garanaysaa wacyigelin xagga ciidanka xagga akhlaaqiyan si fiican buu dhisay ciidanku laakiin bulshada waxa la hayn ciidanka laftiisa
inaad garab siisaan soo dhaweysaan marka waxaan leeyahay taas iyada bulshadaan u dirayaa ta kale xogta lafteeda bulshadu annagu ilaalada waxaan nahay magaranaysaa daacad oo dariiskaasaan qabnaa laakiin xogta muhiimad sida dhalinyartu iyo bulshadu noola shaqayso aad bay u fiican tahay oo aad u sarreysaa bulshada waxaan leeyahay macnaha inta kale ee aan macnaha magaranaysaa dad badan oo ku dayasho badan baa jiro oo dhiirigelin u baahan inta badan dhalinyartu haddii ay magaalada tahay fatishaaga lagaga jiro iyo baaritaanka goobaha qabalay kasta dhalinyaro ka abaabulan baa jirto oo calaamadii qabta si fiican wax u baadha ciidanka la baadha aad bay u mahadsan yihiin kuwaas marka waxaan leeyahay waxba inagu dhex dhuumanin ciidanku bulsho la'aantii wax ma qaban karaan dhalinyaro la'aantii wax ma qaban karaan aabba la'aantii wax ma qaban karo hooyo la'aantii wax ma qaban karaan marka waxaan leeyahay baaritaanka kulli laga wada qayb qaato ciidan keliya wax ma baari karo bulshada lafteedu iyada macnaha waad ogtihiin macnaha waagi dhaweyd qaybqaybkii ay bulshadu samaysay taageerada ay ciidanka siinaysay dhammaan macnaha ma garanaysaa shacabka ilaashanaya tantay marka waxaan leeyahay aad buu u mahadsan yihiin aad buu u mahadsan yihiin shaqada magaalada Jigjiga aan ka hayno ee baaritaanka uu ciidanku kaga jiro in muddo hadda baaritaan xawli aan kaga jirnaa natiijooyin fiican oo aan ka keenay amniga magaaladuna aad buu u fiican yahay nabadgelyo weeye booliskuna qayb weyn magaalada amnigeeda lagu ogyahay amniga magaaladana aad baan u adkaynay wax dhibaato kama jirto nabadgelyada si loo xoojinayo waan sii wadaynaa hadda ka horna magaalada amnigeeda annagu baa gacanta ku haynay haddana maadaama xaalada jiraan laba jibaar sidii aan hadda ka hor baan shaqayn jirnay shaqada hadda ma bilowdin in badan baan magaalada Jigjiga iyo caasimadda deegaanka oo dhan ka soo shaqaynaynay laakiin hadda waxa cusub waxa weeyaan shaqada in la dardargeliyo maadaama xaalado xuduudaha ay ka jiraan xaaladahaas dartood baan shaqadii u laba jibaarnay habeen iyo maalinba inaan ciidanku yeegan galo saacad aan laga bixin 24 saac la shaqeeyo bulshaduna xogta dhabta la weydiiyo bulshadana aad baan ugu mahad celinayaa waxa weeyaan qayb weyn bay ka qaadatay amniga qayb weyn bay bulshadu ka qaadatay halka kaga sii wadaan baa leeyahay bulshada sharafta leh hawlgal baan ku jirnay habeenadan saakadan hawlgal baan ku jirnay anaga dad u diyaar galownay marka waxaan u taaganahay inuu shacabku mataqaana nabad ku socdo nabad ku soo tooso wixii ma garanaysa cadawna laga dhax qabtay ee soo gala gudaha wadanka inuu soo gelina waanu kalifaynaa hadii la yiraahdo idinkana waan iga mahad celinaynaa maadaama mataqaana mar walba ciidanka garab taagantiin bahdeena booliska miidiyaha aad baan iga mahad celinaynaa qoyn madal dhala ayaa xalay la qabtay habeenadana waa la qabtay toddobaadkana waa la qabtay haddana waan wadnaa wax weyn hadda wanaga diyaarka u ah shacabkana waxaan leenahay ciidanka la garab istaago haddaydan ciidanka idinku xog siinin oo idan ciidanka garab istaagin wax shaqa oo anaga noo qabsoomaysa ma jirto anaga shacabka anaga indhaha anaga xogtanada iyo dhagaha waa idinka waxaan leenahay shacab weynaha deegaanka Soomaalida na garab istaaga xogtana siiya meesha isleedin dhaaq baa ka jira nagu haga idinkaan inii shaqaynaa